ku soo dhawow Somali Online Academy haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan sar subscribe notification-kana furo siday kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee la soo geliyo channelka isla marka la soo dhigo waad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان ما تحكوا سابسين هاي grammar ونحو arrangement of word واسكو هاوينتا إريادا وهبك لغة إنجليزكا أي إريادو اسكو هاويان مباريات arrangement of word وأنيقو خالد عبدي هالكن وصومالي أونلاين أكاديمي لسه 10 كورنا ما يصير هذا ma u baahnayd barashada luuqada ingriiska ma heli weyday chance aad ku tagto iskuul ama fasal haddaba waxaan ku diyaarinay xal cusub oo ah barashada luuqada ingriisiga adiga oo jooga gurigaaga haddii aad danaynayso nagala soo xiriir whatsapp nambarka shaashada ku qoran. and the way habka grammar naxwu ku saabsan yahay xidhkeenu saan soo sheegay the way habka that words kelmadaha ina sentence ku jira sentence-ka ama word-a are arranged loo habayaan qaadan doonaa maanta waa the way habka that words ereyada arrangement of word waxa weeyaan waa habka ereyada ina sentence ku jira sentence-ka ama word-a are arranged loo habeeyo loo habeeyo weeyaan. Look at this example tusaalayaashan bal eeg at this example tusaalayaashan eeg clean room that is ma aha sentence ama word habaysan clean nadiif room qol that is waa qolka nadiifi baa looga jeeday marka waa dhaafiyey ma habaysna marka ereyadu ma habaysna ama hab order ma yaalaan nidaamsan ma yaalaan markay saxda tahay waa maxay the room is clean qolku waa nadiif the room is clean qolku waa nadiif. Door look at tusaalaha labaad door look at ilbaab eeg waa sentence ama word aan habaysnayn weeyaan sida marka habaysanta waa sidee look at the door ilbaabka eeg look at the door ilbaabka eeg ama dabada ilbaabka look eeg at the door ilbaabka eeg weeyaan marka way habaysantahay marka hore may habaysnayn. Tusaalaha saddexaad job what is your sentence habaysan maaha maxaa looga jeeday what is your job waa maxay shaqadaadu what is your job shaqadaadu waa maxay markaa sentence-ka waxa ay u tarto waad aragtaa ama wada waxa ay u tarto sida isku habeynta tartiib kelmadu waxay ka dhalataa sida ereyada la isugu habeeyay inta niyada ku hay halkaas uu nagu joogi doona casharkeena maanta till next lesson. Assalamu alaikum. Arday baan ahayo oo waxii wadankan ahayo